siyaasi Khadar Maxamed Maxamuud Galbeedi oo kamid ah siyaasiyiinta da'da ka soo jeeda gobolka Sool oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Sool Sanaag iyo Cayn iyo sidoo kale dagaalada deegaanka Tukaraqa. ugu horeyn waxa uu ka hadlay go'aamadii ay guddiga difaaca Puntland ka soo saareen xaaladda Tukaraqa ee qaybta ka ahaayeen ay Puntland la wareegi doonto hantida cid kasta oo loo tuhmo in ay ka soo horjeedo dagaalka Tukaraq ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland. waxaan go'aamadaasi ku tilmaamay qaar si gaar loogu beegsanayo dadka ka soo jeeda deegaanka gobolka Sool. aan leeyahay maamulka Puntland dadka aad leedihiin waxaan la wareegnaa hantidiina iyo ganacsigiina ayaan la wareegnaa de waxa weey taasi tu aan suurtagal ahayn on dhacayn baad ayaad sheegteen. anu laakiin waxaan aaminsanahay maanta in waxa garooba yaala uu hadal geli karo iyo hantida garooba taala in lagu wada hadli doono laakiin Hargeysa iyo Laascaanood aad leedihiin waa la wareegnaa taasi wax aan suurtagal ahayn way marka hadalkaasna dib ha ugu noqdaan reer Puntland. oradaas waxa ku socotaa gobolka Sool dadka degan Sool iyo Sanaag iyo Cayn bay ku socotaa marka waxaan leeyahay madaxweynaha arintaasi arin soconaysa maaha marka waxaan leeyahay aan ugu baaqayaa dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan yaan leedin wax kale beer la xawsi kale yaan leedku la xawsano daarood ahaan hartihaan waxaan leedku beer la xawsan maanta markuu madaxweynaha Puntland uu leeyahay reer Puntland waa la wareegnaa yaan anagu reer Puntland mani reer Puntland reer Soomaaliland ma nahay dana gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn marka waxaan leeyahay dadka wax la qaybsada reer Sool. dhanka kale siyaasi Khadar waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland bulshada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ugu baaqay inay qayb ka qaataan horumarka ka socda dalka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay maanta uma baahna wasiiro uma baahna wax kale maanta wax u baahan bulshadu gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa u baahan tahay maanta madaxweynaha horumarin bay u baahan tahay horumarka in la gaarsiiyo in dawladdu gaadho inkastoo dawladdu ay joogto laakiin haddana ay ka maqan tahay mashaariicii horumarka waxbarashada iyo caafimaadka biyaha taas maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu baaqay inuu gobolada gaarsiiyo. waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan waxaan leeyahay maanta kaalaya dadka wax la qaybsada oo wax la tartama oo maanta goboladeen uu ka hareen gobolada kale والله وبالله وطلعه maanta waxa jirta gobolka awd la yiraahdo sida ay horumarka iyo businessyada iyo mashaariicda ay ka furteen Soomaaliland magaalada madaxda Hargeysa ay ka furteen leelmis inaguna maanta qori iyo xabad iyo dagaal weyn ku jirna maanta waxaan leeyahay kaalaya dadka wax la qaybsada marka waxa jira dad badan oo ku nool Hargeysa iyo Burcaba oo ganacsi iyo mashaariic kala duwan ku haysta kuwaasi wax la yeelaa ma jirto wax dhib loo geystaan ma jirto. waxaan leeyahay maanta madaxweynaha Puntland dadku waxa uu shirka jaraa'id iyo waxyaalaha soo saaraya inana waxba yeelin oo tahay kala fogeyn dadka la kala fogeynayo. ugu dambeyn waxa uu siyaasigan la hadlay siyaasiyiinta ka soo jeeda goboladaasi oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan isku soo dhaweynta bulshada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo xukuumadda Soomaaliland. waxaan ku dareeyaa qodobka kale aan ku dareeyaa xawey halka waxaan kaga soo horjeedinayaa wasiirada ama xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay in aad u kala dab qaadaan oo isku soo dhaweystaan bulshooyinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda xukuumadda inta badan wax ka tabata inaad u soo kala dab qaadaan oo u kala keentaan si ay mashaariicaha iyo horumarka ay wax uga qayb qaataan madaxweynaha uga qayb qaato waa in ay ka shaqeeyaan taas si ay u kala dab qaadaan iyaga bulshada haddaan bulshada iyaga la isku soo dhaweyn waxa weeye taas halkaas dhibka imanaysa dhibta weyn halka ay ka timaada hadiya jeer ee gobolada Sool ay aad uga caawdaan waxa weeye xukuumadda waxna ma qabato bitri taasna mas'uuliyadeeda waxa haya waxa weeye cidda xilka haysa haday xildhibaan noqoto haday wasiir noqoto iyo haday cid kale ba noqotaba in laga shaqeeyo in laga shaqeeyo wixii mashaariica ee gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn in laga shaqeeyo ay xukuumadda iyo bulshada isku soo dhawaato
taasaan kugu daraya iyagana qolada xilalka haysa